aad baan idin salaamayaa saaxiibada meel kasta aad joogtaan halkan waa hadaleynta 14 saaxiibada ku soo dhawaada muuqaal kooban oo aynu ku eegi doono lamaanaha ugu daada yar oo isguursaday haddaba lamaanahan wiilka 10 sano jir weeyaan wiil 10 sano jira wuxuu guursaday gabadhan qudheeda 9 sano jir weeyaan haddaba ay 8 sano jirin sidoo kale saaxiibada waxa aan idin soo gudbin doonaa halkee ay ka soo jeedaan lamaanahan yacni gobol ahaan ma dhanka waqooyiga dhanka koonfureed miya arrimahaas ayaynu falqeyn doonaa saaxiibada sidoo kale magaalada ay ka soo jeedaan sidoo kale saaxiibada xog ku saabsan ayaynu eegi doonaa lamaanahan daada yar sidoo kale waxay fariin baaxad weyn oo ay u noqonaysaa dadka qaangaarka ah daada sodomeeyada daada afartameeyada iminkan aan guursan oo wali doonaya in dabcan ay guursadaan dhawaantan laakiin markasta guurku waa calafooya sidoo kale daliil xoogan ayaa loo jeediyay lamaanahan dabcan hooyooyinkooda ama waalidiinta caruurtan sababtee tahay waxa la yiri caruurtan hadda oo kale kuma roona inay isguursadaan arrimahaas aynu falaqeyn doonaa saaxiibada waxaan idinka codsanayaa in YouTube-ka hadalheenta 14 noo subscribe gareysaan sidoo kale waa inaad share gareysaan dabcan codsi weeyaan sidoo kale la gareeyo muuqaalkan waayaha saaxiibada haddii aanu ku bilaabno runtii baraha bulshada markaad joogto wax badan ayaad arkaysaa iminkan baraha bulshada waxaa la faafinaya ama la baahinaya wiil 10 sano jir ah iyo waliba gabar 9 sano jir ah oo dabcan isguursaday oo iminkan sawirada iminkan saaxiibada ay u muuqdaan laakiin dad badan ayaa isweydiinaya labada lamaane maxaa ka jira horta noloshooda sidoo kale dad badan ayaa aaminsan inay yihiin laba lamaane markaas malxiisayaal laakiin arintan ma aha waa arin weeyaan arintan waxay ka dhacday gudaha halka lagu magacaabo magaalada Burco aalele waka gobolka Ragga weeyaan inta badan sidoo kale waxaa lagu soo warmayaa in lamaanayaashan ay ahaayeen dad markaas ama saaxiibo jilay jecel jecelka markii la yiraahdo weynaan yaran maahan waa sax weeyaan haddaba lamaanahan dabcan inkastoo magacyada aan la baahin la qariyay laakiin inta badan dabcan reer Burco waxay ugu yeeraan inanta dabcan Sumayo sidoo kale wiilkan waxa la yiraahdaa Maxamed haddaba Sumayo iyo waliba Maxamed noloshooda maxay tahay runaantii nolosha waa dad markaas isfahansan waa dad markaas muddo jecelkoodu ahaa muddo mid markaas la soo xardhay sidoo kale iminkan baraha bulshada ayaa lagu faafinaya sidoo kale wiilka markii la sheegay daadiisa ama la baaday gobay waxa soo baxday 10 sano jir runaantii wiil 10 sano jir haduu guursado inan 9 sano jir waa markaas mid markaa aad iyo aad u fan weeyaan runaantii dhaqanka markii loo eego horta guurku markasta waa muhiim weeyaan guurku waa muhiim weeyaan haduuba xalaal yahay waana sax hadiiba gabadhii ay qaangaadho ama ay qaangaarto weeyaane wiilkiin uu qaangaaro inkastoo lamaanahan aysan qaangaarin laakiin kulay hadiiba dabcan sheekada guur ay tahay wallahi wax baa jira soo lama dhihin maxaa yiraahdaa gabadhu yaraan ma gasho marka wiilku sanadkan noqodiisa hadaba yaraan ma galo marka guurkooda Burco ka dhacay iminkan baraha bulshada ayaa dabcan maxaa la yiraahdaayo lagu baafinaya ama lagu faafinaya runtii arintan ayaa mid markaasi aad iyo aad markaa baraha bulshada la hadalhayo dabcan goobta ay ka soo jeedaan waa Soomaaliland weeyaan gaar ahaan halka la yiraahdo Burco weeyaan run ahaantii dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin dabcan inay qaldan yihiin labada faamil ee caruurta dhalay maxay ku qaldan yihiin qalad waxa la dhahay ma jiraan haddii dabcan ay iscaanshaqeen haddii dabcan ay isjeclaadeen maxaa diidaya inay sahantiyaan de qanacsanaan baa meesha taala soo maaha marka waxa la yiraahdaayo iminkanba waxay ku nool yihiin gudaha halka la yiraahdo Burco waana isku faraxsan yihiin run ahaantii markasta noloshu markasta waxay qurux badan tahay markaad haysato ruux aad jeceshahay haddaad haysato waxaan aaminsanahay in nolosha dabcan 100% ay tahay mid aad iyo aad u muhiimsan marka labada lamaane way isku qanacsan yihiin dad badan ayaa comment gareynaya waxayna leeyihiin waalidiinta ayaa qaldan kan weeyaan waxa soo kale maaha haddii dabcan aad jecelkaaga aad heli weyso nin baa jecelkiisa helay haddaad jecelkaaga dabcan aad maxaa la yiraahdaa waqtigeeda kala geeyay ama dabcan aad iscalfan weysaan haddaba labada lamaane way iscalfadeen waxaanu leenahay guurkiina guri qayr
guurkiina gurinagii guulow idinka yeel sababta tahay anigu waan jecelahay lamaanayaasha markasta macnaha waan jecelahay sababta tahay qofka markii uu qadariyo lamaannimada markuu qadariyo family qudhiisa waa la qadarinaya qudhiinaba saaxiibada iminkan badaawanaya qadarinta iyo sharafta dhankiina waan aaminsanahay inaad dabcan aad qadarin doontaan lamaanahan iminkanba nolosha iyo dabcan adduunyadaba isku fahmay kolley labada lamaane yaraantooda isku fahma waxaan aaminsanahay in haddii ay weynaadaan ay isfahmi karayaan sababta tahay nolosha yaraannimada ka soo bilaabata maahan wax sahlan nolosha yaraanta ka soo bilaabata wax sahlan maaha sababta tahay hadda markaad xasuusto markii aad dabcan aad u yar da'daada 9 sano ama 10 sano ay jirtay markaad xasuusto waagii aad dugsiga dhiga jirtay waxaad sameyn jirtay oo kale ama dabcan maxaa la yiraahdaayo xilliyadaas oo kale dabcan xasuus weeyaan waxay tahay dabcan la xasuusto kulay waxaan aaminsanahay in noloshu ay tahay mid marka aad iyo aad u muhiimsan kulay lamaanahan waxaanu leenahay idinkoo da'dan jira Allah ha idin siiyo awlaad markaasi dabcan aad ku ciyaartaan oo ma sha Allah oo dabcan boqolkiiba boqol aad ku madadaali doontaan awlaadaasina dabcan markay istoo noqdaan awlaad marka idinkoo kala ma sha Allah oo diinta boqolkiiba boqol ku wanaagsan marka saaxiibada muuqaalkan runaantii dad badan ayaa waxay dhihi doonaan horta ugu horeyntii maxay tahay sababta ay isku calmadeen calmashada waa qalbiga weeyaan dabcan labada ruux haddii isfahmaan waxaan aaminsanahay in dabcan ay noqon karto wax kasta oo aad iyo aad u hufan laakiin dad badan ayaa isweydiinaya maadaama lamaanahan ay yihiin lamaano aad iyo aad u daayar yaa jaceylka soo bandhigtay ama waa kuma qofka jaceylka soo bandhigtay wow dad badan ayaa isweydiinaya laakiin haddii aan ku yiraahdo ka waran wiilka ayaa soo bandhigtay wuxuu yiri gacaliso waxaan diyaar u ahay inaan ku guursado gabadhiina waxay tiri wow haddii bay saas tahay gacali anigana waxaan diyaar u ahay inaan isguursano ilmihii yaraa oo 10 sano jiray ama 9 sano jiray ayaaba jaceylka saan u xardhaya wallahi Soomaalidu waxaan aaminsanahay kaalinta koowaad inay kaga jiraan dhanka jaceylka saaxiibada halkan ayaa muuqaalka ku soo gunaanadaya waxaana idin leeyahay hadda soo dhawaada waxaan idin ka codsanayaa in YouTube-ka hadaleynta 14 noo subscribe gareysaan share dhexdaan lamaanahanna aad u duceysaan inuu alle markaasi dabcan ay isku barakoowaan awlaadna ay helaan hadduu eebeedno saaxiibada waxaa leeyahay nooli kulantii ayaan idin leeyahay muuqaaladan run ahaantii ama baraha bulshada waxyaabaha ugu muhiimsan ee la hadalhayo waxaan diyaar u ahay inaan idiin soo gudbiyo waxaan diyaar u ahay in dabcan saaxiibada boqolkiiba boqol ay la socdaan waxaan idin leeyahay saaxiibada muuqaalkan muuqaalkiisa xiga bye bye